dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ninka bilaabay waa aniga waxaana marxaati iga xirsi waa guddigii aan hoos ahaan sir ahaan isu arki jirnay inta la shaacin geed anaana alifay oo odayaal baan u diray waqooyiga laba oday way ka soo noqdeen dad oday soo arkeen laba kalaan u diray way soo noqdeen markii dambe wafdigii abaaraha halkan markay ka dhaceen wafdigii waxa halka milyan geyn jirtay 1 milyan ma ahayn waad faanaysiin 400 kun bayd marka wafdigii waxa ku jira laba qof oo og labadii qof baa waxaan u geeyay Sheekh Shariif iyo Silaaya markaas wada hadlay xirsi asadana waxa kamid ahayd arrimahan soo jeedin inta wada hadalay waxa kamid ahayd war muddaha la isku soo celiyo wadankan sidiina ahaada oo sidiina isu maamulo oo madaxweynihiina doorto oo sidiina ahaada laakiin siyaasiyan muddo aan Soomaaliyeed ha soo noqoto soo ma garan ka bacdina muddada waan isku khilaafsanayn annagu waxaan dhahaynaa 10 sano ayakuna waxay dhahayaan 3 sano waxaan kala u gudbayaa qodob uu ka hadlay nin reer xamar oo yiri ninka la yiraahdo tarsan ee meerka ahaan jiray oo malay iminka lagu yiri musharax buu Soomaali weyn u yahay ayaa waxa la ii sheegay inuu kaga hadlay saxaafadda ana runtii maan wada dhageysanin kooma gaar وليه حرسي بقى هاني كان وضع بلوني وضع هذا الك وحنا نسلوه قرين سومالي وبنتي واحد سومالي وين أنا نسلوه قرين سومالي وين يقدر سومالي وين بيوتن أنا سومالي لاني يمدح بناني ذا نودن أنا ترسنا قار ما ناكل من واحد لو يدين كلا وفتي وأنا أسكو أركي تري أنا ترسن واحد حد القار قبل حين تري ما ناكل من قصنا ما نودي قل وفتي أنا وضعهين وحكم ده وزير في خارج جمركها يسوون نوبها هو جنوها محمد عبد الله وحكم ده باش وإمك أمباستور إمارات كها صدح بان أنا وهين يجونا الشنبه هاي وارون هدو يرادو كلن كي يجوه الرئي بان كقيب قلي أو قيب كاها أو رجي كلن كوشريبوها وارون كلن كنا وبرباريش كوضع هذا الله مركي الديارين يشركي لندن كلن تجستي سمركي لجوا ده هذلي أيها كلن نوع عسى أنو كوضع كلن مش اللي يهدو نيروبي مركي كلن كلا وضع كل منا officially وحكم ده كلن حقه دوتي والله ورئيسن كراني ولا بعد سوي دين كرت وزير كداخل جنكي وهاي عبد السمد هي كمدها marka teamkooda waa Cabdi Samad baa kamid aha waxa kamid ah ninkii loo oran jiray wasiir goodax balaani ka joogay waxa kamid aha isaga oo ahaa meeyarka waxa kamid ah ninkii sirdoonka joogi jiray loo oran jiray fiqi waxa kamid ah nin faarix la yiraahdo oo sheebaha shantaas ayaguna haayeen shantaa iyo saddex sideedaas aan ku kulanay waxaanu barbaareyskiisa ku jiray waa markii wada hadal la furo ugu horeysay sideebaynu wada hadalkii u furaa iyo halkeen ku wada hadalaa qodobo kale laga wada hadal sidaynu wada hadalaa iyo waxa weeye halkeen ku wada hadal taasuna maxsuulkeedu wuxuu ka soo baxay shirkii London ee Javelin House qofkii yaani dad joogay kii kale document internet ku jira ka yaabo Javelin House buu ka soo baxay kulankayagii markaa wixii aanu yaani barbaariishka u sameeyeen kulan walibana kaasoo kaliya waa laga yaabaa dad tarsanin inuu soo guul ka dhiganayo maanta sharaxan yahay kulan waliba wuxuu lahaa barbaarity kii aanu ku saxeexnay meesha la yiraahdo Turki ku saxeexnayna Abu Dhabi baanu barbaarity teamka ku sii diyaarinay wada hadalkii aanu ku sii wada hadalnay si aanu fashilmin oo yaani war maxaynu isla gaarayna maxaynu isla garayna maxaynu isla diidana waxa mar walba taagnayd adeer adiguna midnimadaada hayso annaguna madax banaanidayada maxaynu isla fahmi karayna haddaanad madax banaanida ogolaanay marka la isbari waayo taas ay imanaysa maxaynu isla fahmi karayna annana madax banaanidayadan wadano madax tagin la golo tagin iyaguna midnimadooday watiro la golo imanay waana de yaani hadduu kulan kaliya noqon lahaa wax la oran lahaa xirsi baa kaliya ku jiray ilaa iyo 8 kulan ee dhacayba waan ku jiray ilaa kii u dambeeyay aanu ku kala kacnay baan qayb ka ahaa team player halkan teamka kaga jirayna saaxiibada weydiyo halkan kaga jiray ma waxaan ahaa nin u dabacsan oo baalkii mise waxaan ahaa nin adag mise waxaan ahaa nin la socdo aweer mise waxaan nin warmoog saaxiibada teamka la weydiinay waa joogaan waa nooli cabdi daahir ma dhinta Allah yarxam taana intaas ku soo gabagabeynay waa mahadsantahay